13 Bobes ayaa qaatay magaca Leo, maxaa magacan ka dhigaya mid muhiim u ah taariikhda Babel? Waqti hubaallaan caalami ah, katicanka ayaa si qoto dheer u gaadhay taariikhdeedii hore si ay u soo noolayso magac taariikhi ah. Cardinal Robert Prevost, oo asal ahaan ka soo jeeda Tiago, ayaa loo doortay Bobe cusub, isagoo doortay magaca Leohif. Tani, kaniisaddu waxay dib u soo celinaysaa magac markii ugu dambaysay looga dhawaaqay balakoonka Babel in ka badan 2 sano ka hor. Magaca Leo waxaa laga yaabaa inaan la isticmaalin muddo 10 sano ah, laakiin weligeed lama iloobin. Waxaa loo yaqaanaa muhiimadda taariikhiga ah iyo isku xirka waqtiyada muhiimka ah ee horumarinta kaniisadda. Leo kuma soo laabanayo kaliya calaamad ahaan, laakiin sida hadal. Magac xidid ku leh taariikhda kaniisadda. Doorashadan, magaca Leo wuxuu hadda ku xiran yahay element oo ah magaca afaraad ee ugu isticmaalka badan. Inkasta oo magacyada sida Johann Gregory iyo Benedict ay marar badan soo baxeen, Leo wuxuu u taagan yahay qaabkiisa. Waa magac maskaxda ku soo kordhiya xoog, caddayn iyo hogaamin sifooyin si gaar ah looga dareemayo adduunka maanta. Afhayeenka Fatican Matteo Bruni ayaa shir jaraa'id ku sharaxay sababta ka dambaysa doorashada baadari cusub, sida uu soo xigtay CNN World. Doorashada magaca waa tixraac cad oo ku saabsan caqiidada bulsheed ee casriga ah ee kaniisadda, kaas oo ka bilaabmay Rerum Novarum, ayuu yidhi. Waxa uu intaa ku daray ragga, haweenka, shaqadooda, iyo shaqaalahooda eedada sirta macmalka ah, isagoo muujinaya sida kaniisaddu ay ugu xiriirinayso waayihii warshadaha ee la soo dhaafay isbeddelka dijitaalka ah ee maanta. Saamaynta Leohii. Bobekii ugu dambeeyey ee doortay magaca wuxuu ahaa Leohii, oo hogaaminayay kaniisadda laga bilaabo 1878 ilaa 1903. Sida laga soo xigtay warbixinta baabacnimadiisa, mid ka mid ah taariikhda ugu dheer ee taariikhda, ayaa lagu xusuustaa qaabaynta aragtida casriga ah ee kaniisadda ee arrimaha bulshada. Sannadkii 1891, warqaddiisii caanka ahayd Rerum Novarum, isbeddelka kacaanka, ayaa ka hadlay xuquuqda shaqaalaha iyo mas'uuliyadda loo shaqeeyayaasha, fikradaha weli muhiimka ah maanta. Adigoo dooranaya magaca Leo, Bobe Leohif kaliya maaha inuu dib u soo nooleeyo inwaan hore, wuxuu dib u soo celinayaa dhaxal lagu dhisay cadaaladda, sharafta, iyo ilaalinta dadka shaqeeya. Fariinta ugu horeysa ee Bobe. Sida lagu sheegay warbixinta, daqiiqado kadib markii la soo fuulay balakoonka dhexe ee St. Peter's Basilica, Bobe Leohif wuxuu ku salaamay adduunka fariin fudud, Assalaamu calaykum. Wuxuu ku daray, tani waxay ahayd salaanta ugu horeysa ee Masiixa sare kacay. Inkasta oo uu asal ahaan ka soo jeedo dhaqanka, ereyadiisa ugu horeeya ee Bobe wuxuu soo diray fariin cad oo ku saabsan baahida nabadda ee maanta. Waxa kale oo uu si kooban u qiray hogaamiyihii ka horeeyey, Bobe Francis. Kaniisaddu waxay weli maqli kartaa codka daciifka ah, laakiin had iyo jeer geesinimada leh ee Bobe Francis, ayuu yidhi, isagoo qiraya saamaynta joogtada ah ee baadari hore. Ku noqoshada magaca Leo the Great. Dhaxalka magaca Leo wuxuu dib ugu noqdaa Leo oo loo yaqaan Leo the Great, kaasoo ahaa baadari qarnigii 5. Sida warbixinta lagu sheegay, wuxuu caan ku yahay inuu Attila Hun ku qanciyo inuu ka laabto Rome, falkaas oo la sheegay inuu badbaadiyey magaalada. Xilligan taariikhiga ah ayaa markii dambe lagu qabtay rinjiyeyn 1514 uu sameeyey Raphael, kaasoo hadda ku dheggan qasriga rasuulada, meeshaas oo ah meesha ay kadinalku maraan marka ay soo galaan shirka. Soo noolaynta magaca waqti isbedelaya. Markaad dooranayso magaca Leo, kaniisaddu waxay soo celinaysaa wax ka badan magac hore. Waxay muujinaysaa baahida loo qabo hoggaan adag, daryeel leh oo leh aragti cad sida dunidu si degdeg ah isu beddesho. Iyadoo Bobe Leohif, katicanka ayaa sheegaysa in qiyamkii hore ay weli naga caawin karaan inay nagu hagaan maanta.